mashruuca dib u dhiska wadada isku xidha magaalooyinka Kalabaydh iyo Dilaa waxa fulinaya wakaaladda horumarinta wadooyinka Somaliland ka hor dib u dhiska xaaladda wadadu waxay ahayd mid liidata gaadiidka iyo rakaabkuna kala kulmi jireen rafaad badan mashruuca waxa laga maalgeliyay sanduuqa horumarinta Somaliland SDF anigu markaan shakhsiyan u fikiro ma yiraahdo wadada dayactir baa lagu sameeyay laakiin waa wado cusub oo la sameeyay wixii hore jira waa la qaaday dib baa loo garaacay stabilization waxa la yiraahdo deganaansho loo sameeyo sawir baa lagu daray ciida anaga runtii aad baan uga nahay mabsuud faa'iidooyinka oo mashruuca dib u dhiska wadadu soo kordhiyay waxa kamida waxa koobmay waqtigii isku socodka magaalooyinka Somaliland gaadiidleyda ayaa iyaguna ka raystay kharashaadkii badnaa ee ka gali jiray dayactirka gaadiidka kulleyda dayactirka gaadiidka kala uu xaba naga jabiyo kala uu taayir naga qarxiyo godadkaas wallahi dhibaato badan loogu hay imika aad iyo aad baan u fiicnaa wallahi dhibaato nagu yartay inta imika dawga la bilaabay مشروعه waxa maalgeliyay sanduuqa horumarinta Somaliland SDF